وعلم سيدة يهيد وحنا ركن كيغيا دنك أن إن wax ka garanayo ee saxaafadda propaganda ujeedka loo adeegsado waa in xaqiiqo jirta lagu asturo khayaali aan jirin xaqiiqo laga dhigo gebigeeduba waa intaas waa in xaqiiqo jirto muuqata daah lagu saaro lagu qariyo waxyaabo mala awaala ama hadii doonaan ay wax ka jiraan laakiin aan macna buuran lahaynna lagu muujiyo oo wax weyn laga dhigo Sufyaan markii uu arrinkan soo bandhigay waxay saxaafadii ku jeesteen dumarkiisii uu guursaday waana markii ugu horeysay ee aan arkay niman garad leh ama garar leh oo guurka badan wax ka sheegay oo dhaliilaya yaab waa markii ugu horeysay aan arkay guurkii ma wax la isku caayo noqday mise torow iyaga raganimadooda u goyn weyday waan fahmay in ay tahay propaganda meel weyday arrinkii markaa uu sii yaro horumaray ilaa uu soo gaadhay Sufyaan dad ayuu laayay 19 qodobkaas isaga ah ayaanan si toos isu dul taagaya ma qabay Sufyaan sheekh inuu dad laayay waana dabeecadda propagandaha oo waa sida irbadda suuxinta oo marka qaliil lagu samaynayo irbad suuxisa lagu mudo ee ay ku suuxin weydo irbad ka culus baa lagu mudayaa propaganduhuna waa sidaasuun marka la doonayo subcadda dhulka laga dhigo oo waxaad wada la baabi'iyo ee propaganda xun lagu sameeyo ee sidii loo baahnaa ay wax u qaban weydo propaganda ka falxun baa la sameeynaya yaani waa irbad suuxisa oo weyn waxa uu ahaa arrinka dilkaasi irbadii suuxinta ahayd ee ugu weynayd rumaysta haddii uu sida loo baahan yahay u shaqayn waayana mid ka weyn ayaa la keenayaa dilkaas Sufyaan maanta loo haystay leeyahay dad buu laayay haddii ay shaqayn weydo suuxisa kale ka weyn baa la keenayaa ma qabo ninkaasi inuu dil geystay laakiin Ilaahay ayaa inaga og balse waxa aynu uba hadlaynaaba inagoo ka soo qaadinay inuu dil geystay ugu horeyn in uu wax dilay waxan uu sheegay ee uu la yimi xaqiiqnimadiisa miyay baabi'inaysaa haddii qofkan uu qof dil bari geystay yahay waxan uu sheegay ee cadayntii uu keenay ee sida aqliga iyo cilmiga ku dhisan uu uga hadlay inaanay wax jiraahin miyay ka soo qaadaysaa oo qofku haddii uu wax dilo hadal kasta uu sheega ma beenba miyanu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku oran saxaabigii ibliis qabtay sadaqaka wa huwa kadub ibliis isagoo aka ugu beena waasaysan ugu beenta badan ayuu haddana run ku sheegay miyaanu isagoo Sufyaan 40 wariye dilay kaba soo qaad 40 kale wariyana dilay haddana waxaanu sheegay aan run noqon karin waliba hadduu cadeymo keenay oo si aqliyo cilmi ku dhisan uga hadlay taas waa su'aal taagan walina u taagan shacabka Soomaaliyeed iyo nimadii wariyaasha hay'adka dheera talabaad koob iyo